عليكم ورحمة الله وبركاته خواتي كسو دوادا شانالكayga maanta waxaan rabaa waxyaabada timaha lagu jilciyo sida keratinka amba jilciso natural aad u samaysan kartaan maadooyinka chemicalka kaga maarmi kartaan insha Allah marka hore waxaan soo qaadanaynaa masha Allah 3 koob saad u arkaysaan waa 3 koob masha Allah flaxseed baa ku jira linseed baa ku jira masha Allah halkan waxa ku jira xulbad maxay tartaa weeyaan muhiimadu ما شاء الله فايدونا لسوق ما شاء الله فلاكسيد كادن شيغنو waxyaabo badan baa ku jira linseedka omega 3 bay ma sha Allah caan ku yihiin waxa kale caan ku yihiin ma sha Allah calcium badan zinc magnesium waxyaabo badan bay haystaan labadan geed waa isku mid linseed iyo flaxseed waa wada ogtiin waa laba shay isku mid ah qoondarka waxa loo yaqaano oo laba kalar leh midna waa ka huruuda midna waa brown buniga marka ma sha Allah iron bay wataan magnesium omega 3 wax walba ma sha Allah waxyaabo fara badan bay wataan oo timo u baahan yihiin timo bay strong ka dhigayaan ma sha Allah adkaynayaan salkay ka soo fiicnaynayaan salka haday dhibaatooyin ku qabaan vitamin E way wataan ma sha Allah waxyaabo fara badan xulbadu dryga ka ilaalisaa timaha taxabtay ka ilaalisaa timaha ma sha Allah waxa kale ay samaysaa way badisaa timaha khafiif way badisaa waxay kale samaysaa timaha meesha cilladoo kale ma sha Allah waxbay soo bixisaa faa'iido fara badan bay leedahay laftigeega marka saddexdan markaan isku kariyay jeelkan baan ka soo saaray ma sha Allah sa ugu arkaysaan waa jeel oo aragtaan saas oo kale jeel noqonaya ma sha Allah saddexdan markaan isku kariyay jeelkaasaan ka soo saaray aan inaba caadi ahayn saddexdaas aad ku ridaysaa distiga wad karinaysaa markuu soo noqdo wad ka miiranaysaa ma sha Allah laga ma sheekeyn karo marka waxa ku xiga labadan kale sleeper elm balada bark balada marka la karinayo food waxa la marka la cunad loogu talagalay barkana waxa marka laga soo sidiisa lagu soo gooyay isagoo sidan oo kala helaysan xitaa iyo isagoo powder labadaba waad ku samaysan kartaa wax mushkilada male ma sha Allah waxid waa geed baalkiisi ma sha Allah aad u wanaagsan in la soo koobi karin ma sha Allah midda kale waxa weeyaan marshmallow balada faa'iidooyin aan in la caawiyo kuna wataan sleep aan walaalahay faa'iidadiisa lama soo koobi karo wuxuu u fiican yahay dadka doonta xanuunto amba cunaha kale problemo ku qabo kale qoomaha qabo kale dadka gastriga qabo kale aad xun dadka ma aragtay hargabka hayo kale waxyaabadaas oo dhan ilmaha waa u fiican yahay xitaa saad ogtiin any age baa la karinaya ilmo kasta qof weyn qof yar sida boorashka loo karsada aad wanaagsan yahay marmar sida shaaxa loo karsada xoogaa uu dhib badan yahay marka shaax uu karsidid qofku isku qasbaya maayna ma cabi karo qofku waayo wax budo ah oo sida cabligoodi way adag tahay isagoo qoriya sidana kala daadashanayas waa cabi kartaan way jirtaa labadaba way jirtaa isagoo sidaas iyo isagoo sidana laakiin isagoo budo ma cabi kartaan akhawati taastigiisa haddaadna ku darsaneen qorfaa dhaadheer iyo wax ku yeela udgoon sida ma aragtay saxtarka oo kale caleenteedu waa udgoon waad ku darsan kartaa ma sha Allah si uu shaxaan u cabti isagoo geeda ma sha Allah timihi wuxuu ka dhigayaa silk wuxuu ka dhigayaa xariir wuxuu ka dhigayaa israacinaya isma qabsanayaan hadii afkooda kale iska qabsanayaan hadii dhibaatooyinkaas oo kale qabeen ma sha Allah aad bay uga fiicnaanayaan laga ma sheekeyn karo marshmallow-guna waa soo kale wala cabaa ma sha Allah wala cunaa waxyaabo badan bay ma sha Allah isaga iskaga mid yihiin aad ugu fiican labaduba waa weight loss bu aad ugu fiican yahay boorashkan dadka doonayna iska ridaan miisaanka dadka asmada loo kale ugu fiican dadka infectionka loo kale ugu fiican yahay laga ma sheekeyn karo marqaraha dadka kula dhibaatooyinka inflammation ka kale uu fiican ma sha Allah marshmallow-gana ma sha Allah hadaan soo qaato dadka afkooda qaleel kale amba dhibaatooyinka afka ku dhaco kale xanuunada ku dhaco kale aad ugu fiican yahay waxa kale ugu fiican yahay dadka jirka cuncunka haysto kale dhibaatadaas oo kale iyo gaaska iyo dhuuntiga kullu isaguna waa iskaga mid shaaxna waa loo cabaa siyaabo kalena waa loo cunaa ma sha Allah marka timaha waxay ka dhigaan xariir labadoodu lama kala reebo akhwaati xariir bay ka dhigayaan ma sha Allah gebi qaybahan oo dhan waa waxyaabada jirka timaha jilciya macal dacarta marka lagu daro intaas marka waa waxyaabada timaha jilciya haddaad doonaysid labadan kaliya iyo dacarta jeelkeyga ayaad ilmahaaga ma sha Allah iskugu daraysaa maashin u gelinaysaa timaha aad u marinaysaa subaxii ugu yaraan ilmuhu waa inuu 5 saacaad ku joojisid subaxii iska ciyaaraan ka bacdina ka qubaysid waayo wax kulul maaha wax dhibaya maaha timoogina nafaqa galaya dad caruuraha timaha badan leh iyaga timooga way israacayaan ma sha Allah way u jilcayaan
aad buu ugu fiicnaanaya hadday iska qabsanayeen, hadday afka iska qabsadaan, hadday salka iska qabsadaan, waxaasoo dhan way ka tegaysaa maasha allah, timihuu israacaya. haddaad doonaysa inaad cream ka dhigatid maasha allah waxaad samaynaysaa, waxaad dhalaalinaysaa beeswax kaas shinida bahasheeda, iyo waxaad dhalinaysaa cocoa butterkii iyo shea butterkii. markaad soo dhalaalisid maasha allah waxaad samaynaysaa iyo labadan iyo dacarta waxaad samaynaysaa, waad isku daraysaa, cream buu noqonayaa. saad u arkaysaan waa cream maasha allah. markuu creamkaas noqdo waxaad samaynaysaan maasha allah oo kale waxaa kula daraysaan lavenderkaas organiga ayaa dhibco kaga daraysaa, waayo maadaama xulbad yar leeyahay sheerka hataa iska naxaysid. waxaa kaloo ku daray saliidan, waayo timaha aad bay ugu fiicanta, way bixisaa sida ugu degdeg badan bay u bixisaa maasha allah. iyadana haddaad doonaysa dadka timuhu ay ka badeen oo kale samaynaysa oo kale kulleyba timaha maasha allah in ay u baxaan, waxaan ku daray maado kaloo timaha bixisa kana ilaalisa dhibaatada kareemka inuu xumaan amba u isbedelin. waxa weeyaan waa maadadan hal qaado yar baan ku daray, teaspoonka afkeega ayaan ku daray maasha allah, lagama sheekeyn karo. marka wuxuu noqonayaa wax adaga aad meel dhigatay, timahaaga sidii karaatiinka oo kale israacayaan, jilcayaan, degdegna u baxayaan maasha allah. lagama sheekeyn karo akhwaati, inaa ila tijaabisiinaan jecela insha allah. saad ogtiin waa waxyaabo sida saliida oo kale, markaad marsatid waa sidii saliida way kugu halaabisaa. waa aragta waa creamka moisturizationkii timahaaga u galaya salka. waxaad samaynaysaa adi maadaama qof weyn tahay, baco waxaa jira oo mise timaha degdeg u gelisa oo aluminium hoosta kule insha allah inaan nila qaybsadahayd maanta, laakiin next time baan nitusaya bacdaas korkay taalla maanta kuma soo tali ma soo dhigin, maadaama hadda duubay inaan soo dhigahayd waan nitusaya kulleyba. maasha allah bacdaasaad gelinaysaa, waxyar waa ku shidaysaa, timahaagii salkay ka galaysaa. coiffeer ma baahnid, timo ma baahnid, markay salka ka gasho kabacdi maasha allah caadiga ku joogaysaa, waad iska maydhaysaa. timahaagii sida ugu degdeg badan isbedel baad arkaysaa maasha allah. lagama sheekeyn karaa akhwaati, insha allah inaad ka faa'iidaysateen baan jecelahay. walaalaha raba wixii faalaha saliidan iyo qaabka loo isticmaalo way igala soo xiriiri kartaan Fountain of Life maasha allah. qaabaha loo isticmaalo iyo saabaha loo isticmaalo igala soo xiriir insha allah, faa'iidooyinkeyga wax badan insha allah. walaalaha daayatka oo kale walaalaha raba oo kale insha allah iyagana waad igala soo xiriiri kartaan sida ugu degdeg badan insha allah. sida caato sahlan oo nafaqo badan waqtiyada ramadaanka suugaanka caafimaad kale insha allah inaad samaysataan insha allah. allah inagu duwo waayaa ramadaan maadaama soo socdo, nafteennana ilaalino, isku soo ducayno. wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu. inaad iga faa'iideen insha allah rajaynaya akhwaati. wixii su-aal insha allah hoosta igu soo qoraysaan, magacdoodan insha allah sad warkaysiin. inta kale wada garanaysa qoondarka inteeda badan xulbada waxaa laga yaabaa geedka ina garawada marshmallow hoosta igu soo qoray. wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu.